السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقييمها يقايها لا مالو البدون كجكتين وحنا لنا مالي ونكسن هدي هبين إذا انتهينا هبي ونكسن وأنا جو صاحبكين خارج محمد سوتشيدو هل كديك داون السنة وستريم نكست تي في برنامج كان وبرنامج جاره وعرب نقدر سؤال إن كوي دينو حدقها استوديو فان بروج حد كمية وعراق عبد العلمي وبرنامج كنا مرتكوها عراق وصلوا ودو هاي محمد عبد القادر حسن محمد سوجيدو صاحب وكدو هاي ستريم ناكستي يولي بهوينتي ان كسوجيدي فان بروتش ثانك يو adigu ku salaamay welcome ثانك يو ان عراق برنامج كان وحرنا دور سؤال او قصيصو شركه فان بروج ان fariimo qaldan iyo fikrado qaldan oo laga gudbiyay oo taageerayaasheeda shacab weynaha adduunka ku kala nool qaarkood la wadaagay ma la xishoohay arrimahaas ka qancino adiga waxaan ku doortay aan barnaamijkan kugu cazuma waxay tahay waxa taa xidigaha aadka maxarada loogu yaqaan shirkadda Fan Bros si fiican waxa la yiraahdaa shirkadda Fan Bros waa la xiray oo waa burburtay arrimahaas maxaa aad macluumaad naga sii kartaa oo aad bulshada kala wadaagi kartaa horta dadka waa iska been badan yihiin run ahaantii haddaan ba ka socdaa Fan Bros filimka magaciisa idin ma sheegay filna soo turjumo cusub oo idin soo gaari doona thank you so much horta saaxiibkay waxa jiro magaca Fan Bros waxa loo sheegtaa laba siyaabood qof waxa jira tusaale ahaan maxamed Fan Bros iska dhaho kale xasan Fan Bros tusaale ismaaciil Fan Bros oo kale taageerin iska yihiin magacaas u qaateen ha qofna in simcada shirkadda uu ku dilo marka oo u qaata صح balse way sidilmeena waa la yaqaan waa Fan Bros thank you so much so hadda waxaan leedahay shirkadda way shaqeysaa ana ka soo shaqeeyay waqtigan xaadirkan ama ka yimidba okay ciraaq dad yooga adduunka ku kala nool waa ogta Soomaalida hal meel wada joogaan aad u weyn waxaa jirto dad rabo in ay ka ganacsigooda suuq geeyaan si waan soo siyaabo far badan oo dadka ay ganacsigooda markaas ay u suuq geeyaan jirto qaar markii aysan lahayn hibo iyo aqoon oo ganacsiga lagu suuq geeyo waxa laga yaabaa siyaabo kala qaldan inay markaas u isticmaalaan ka waran bal markii aniga aan shirkad kale oo shaqeyso aan magaceeda damco inaan isticmaalo oo aan rabo badeecadeeda inaan ku gado soo arimahaas oo kale horta waa su'aal fiican waa ku dareemi karaa dabcan qofka markuu sidaas oo kale wax u sameynayo ama company oo asaga shaqo ku lahayn ama marketingkeeda uu kamid uusan ahayn oo dusha saarto dabcan wuxuu sameynaa commentiga la isaga soo xiriira waa taqa commentiska below comment lagu qabtaa marka صح shakhsiyaadka wuxuu iska xiraa commenting marka oo beelayaasha okay si looga daba tagana waa laga daba tagi doonaa waana la soo qabtay waxna kama jiraan telefoonkaas la iska qabto aad iyo aad shirkadda commentkeedu waa furan yahay صح waa la soo xiriiri karaa saacad walba meesha aad ku taqaanayna waa Fan Bros thank you so much you're welcome ciraaq su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo oo aadka dadka ay u daneynayaan waa su'aal qosayso dad waxaa jiro hadda shirkadda Fan Bros oo inta badan u dhaqdhaqaaqi jiray ma ahayn shaqaalo shirkadda ka tirsan oo mushaarika ah asiga waxa laga yaabaa qofku inuu mas'uuliyad isa saaro asigoo markaas shirkaddan taageera macnaha hadda ma aha wax oo loo qorsheeyay asaga waa isla saaraa okay dad noocaas oo kale hadda waxaa soo baxay oo ka been sheegaya shirkadda leh sida daay aan ku weydiiyay shirkadda way burburtay dadka qaarkoodna wuxuu la wadaagaan inay yihiin xubin kamid ah shirkadda dadka iyagu noocaas oo kale maxaad ka aaminsan tahay oo adoo aadan shirkad ka tirsanin inaad sheegato shirkadda inaad ka tirsan tahay haddana maxaa rabaa aad rabtid inaad shirkadda ka been sheegto aad magaceeda dishid horta shirkadda Fan Bros waa shirkad weyn waa shirkad markaasi qof walbo magac raadisa magac uu ku raadinayo dhan kalena waa tan haday ku sheego hadii aan rabo sharafteeda in aniga isku day inaan dilo ma dili kariyo laakiin teediya ku baabayso tug la qabto talama la waa la soo qabana shakhsigaas waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo iyo qurux kuma aha bilxasaanig iska daa waxaad samaysataa kaliya magaca adiga aad leedahay ku kalsoonaaw aysan ahayn hawa annaka waa alkashifnaana la yiraahdo horan warka ka siideeyna thank you so much you welcome waxaan rajeenaa qof walba fariintan ay ku socoto inuu si gaar ah u dhageysto uu dareemi karaa xiwaana iyo tusaale oo ka qaato uu dareemi karaa anaa ku dhahay ciraaq waxaan rabnaa inaan si guud galno shirkadda Fan Bros waxa taa xidigaha shirkadda ka shaqeeya aad weyn soo muddada shirkadda ka shaqeynaysay ma jirtaa in aad adiga aad kala kulantay shirkadda gudaheeda caqabado oo shirkadda markaasi maxarada aad u arkayso in aysan sii socon karin oo ay maxarada lagu kala tagaayo caqabado noocaas ama arrimo noocaas wali ma kala kulantay
isma lahayn okay kumana fikireen waagii la bilaabaya ayaan ogaa heerkan inay soo gaarayso thank you so much you're welcome okay si guud hadda halka aan igala soo hadleen waa studio Stream Next oo TV-ga ah shirkadda Farm Project waa shirkadda Stream Next partnerka la ah oo waa laba shirkadood mataana ah waxaana soo gaartay in badan oo nagu soo laalaabtay dad fara badan oo laga dhaadhacsiiyey fikirka qaldan oo ah inay shirkadda Farm Project hadda aysan shaqeynin oo kale barnaamijkan waa barnaamij aan rabnay inaan ku falanqeyno ama aan dadka runta kula wadaagno inay shirkadda Farm Project weli jirto ay shaqeyso waxaan jecelnahay dhowr meelood oo kale ay ka kooban tahay studio-han Stream Next iyo habka ay shaqadiisa u socotay Farm Project in aan nigula wadaagno muuqaalka gudihiisa isla socod wanaagsan السلام عليكم سو دhow walaal Stream Next TV maxaa ka caawiya okay walaal macaamiil cusub hadii aad tahay waxaad sameynaysaa Play Store-ka ama App Store-ka taleefankaaga tag application-ka Stream Next la soo deg kadib markii aad ka soo degsatid appka gudihiisa gal qaybta ugu hooseysa sign up ee ku qoran tahay ku dhufo waxa ku soo bixi doona saddex meel oo banaan meesha kor email-kaaga geli labada meel ka hooseysa password isku mid ah gelinaysaa kadib next dheh next marka dhahdid content second kadib uu ku tirinayaa content second ku dhameeyo email-kaaga gudaha u gal laba fariin ku soo dhacayso mid waxay ku qoran ku soo dhawo Stream Next fariin dhehayso iyo fariin kale oo no reply ay ku qoran tahay fariinta no reply da furaysa verify your email address ku dhufanay intaas markaa sameysid appka ka soo bax kadib waxa sameynaysaa waxa ku soo qoraya numberka EFC-ga lacagta bisha soo dirsanaysaa email-kaaga ii soo diraysaa isla markiiba ku furaya adamada walaal soo dhaw waa team Stream Next oo hawshooda ku guda jira muuqaalkan oo dhameystiran goor naga daawado